السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان ومد الصوماليات مل والبيتو أديودا كجسوجيهين وحنكو سلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيان ليه مل والبعد أديودا كجسوجيهين وحد كسر باتان دق بلو قبلو فرح معه كي كيرا بشير بالله متعنين حسن قرص سعيد كيس قرشون درس كيس كنولا وراونا قرسي كوسا هجاب كجلتي مع الشورية بناوين شنطة بغاب غوري. ummadda Soomaaliyeed dhammaantiin hooyo aabo adeer abti saaxiib iyo mucaarad iyo muxaafadba dhammaantiin waan idin wada salaamaya meel walba adduunyada kaga sugateen waa waaski duqbilow duqbilow waa muwaadin Soomaaliyeed aad wada garanaysaan waa muwaadin calankiisa Soomaaliyeed aad iyo aad u jecel waa muwaadin inay Soomaaliya hagaagto aad iyo aad u jecel وموادن دلكيس الصوماليات صدق كسنة دجال كسكية كجرتين دجال كسكية كبحان ما شاء الله أنا قد دقبلوا ومد الصوماليات آديات بيتقانا وحانها موادن دولة هذا جرت آديات وتاجروا وحانها نين آديات ولد أحسن وحانها نين مركو لايف كفيسبوك سوقلو يراهدو جر جرد الربا دولة وهو جامية فرماجو هي دولة وهو جامية خيره نين جر جرد الربا جرب تاجن بان هاي بن يجري واجرت فكر كاسجة وبدلي سند الله بدأ كوني لبعتن كمركي بلابتي فكر كهراء عن دولة كقبي بان واحد بدن كبدلي ما شاء الله دولة الصوماليات لما حقير كرا وحياة بدن بقبتي دولة الصوماليات وحياة بدن والله بحنا ما يسنقبن أوكي أنا أدق بلوه سند المركب بلابتي 2020 وحالا السوق لي فيسبوك يبرع بالشدة وحالا يمد فكر كي لا يقبرتي هوري فكر كدول إن الدولة دي التاجر جري التاجر دي كلا نقضي وأن الدولة دي هذا معارضية وأن دليش الدولة ده عم بناك السوق لي تدبدن باللياب كل نقطي تدبدن بين السود دويي تدبدن بمجرس سؤال بدن السويديري عاوة هل كان وحن إذا كحق بتريا سؤالها بدن مدحينا كجوحي دولة الصومالية هذا وهو جامي مدن محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء حسن على قير ومد الصومالية وحاربة إن أشيغو إن مامولكا وفرماجو جامي إنه يهاي administration شلي يمد برين تجدونه Soomaaliya way jiri doontaa horey bay u soo jirtay haddana way jiri doontaa kumanaan kun boqolaal kun oo sano oo soo socoto caruurtay si dhalaan kuwa si dhalaan ba dhaxli doona Soomaaliya ma sha Allah okay ummadda Soomaaliyeed igama aysan baran inaan anoo duqbilowe aan mucaarad noqdo ummadda Soomaaliyeed waxay iga baratay mar walba inaan taageerayay farmaajo khayr okay ahyar yaan garaysaa baraha bulshada iyo social media idin la qabadsiinaya xaalad ahaan iqaab ahaan qaab ku shaqeeyo saacadan iyo waqtigan a video-ga daawanaysid kuwii shalayto aniga aan isku xisbiga ahayn ama aniga taageerayay maanta waa shakhsiyan aniga mucaarad bay u yihiin sababtoo wixii aan shalay isku taageeray aniga fikir ahaan waa ka noqon dad badan oo Soomaaliyeedna way taageerayaan waa soo dhaweynayaan ma sha Allah fikirkayga xalaasha taasi waa social media iyo caadiisi dhaqankiisa aad iyo aad okay umada magaraysa umad walba ama society walba aan noocaas inay qaarna magaraysa waxa cusub ay soo dhaweeyaan qaarna ay kor yimaadaan aad iyo aad baan soo dhaweynaya qoryaha cusub page-kayga ku soo biiray ama YouTube-kayga ku soo biiray fikirkayga cusub soo dhaweynaya aad iyo aad baa maasantiin qoliyii hore wada shaqeynayeen saaxiibaha ahayn qaarkood iga hor yimid qaarkoodna taageero ayagana aad baan soo dhaweynaya fikirkooda waa ku ixtiraamaya okay dawladda farmaajo aan saddex سنة إن الله أنت كنت هجيرة أنجرب تجمع صوابها عن أجهر إمد بان هل يلبو يدين ببيان إن شاء الله هدو إلى يرد فرماج واجي للدورتي ومدة الصوماليات ملوا البيت جوكتو هبين يمالين بنو تاجنين وأونيني تاريخ بيهيد عن الحقيقة كريم فرماج ومدة الصوماليات قلوب تيدا وحكوها أنتي إنه يهاي نين والدنيا فرماجو أمد الصوماليات قلوب تيدا وحو كقاتي إنو يهي نين عدو أمد الصوماليات كدعدون فرماجو قلوب أمد الصوماليات وحو كقاتي إن عدو إثيوبيا صوماليا مدد الدير فرح كل جري إنو مقرر ساي جيد عب إنو بحر الدونو أي أمد الصوماليات قلوب تيدا كوحدو انتا صوردن دكي لدعي dadka aad iyo aad u soo dhaweeyay baan kamid ahaan oo duqbilow ma sha Allah arrimo qurux badan bay ahaayeen khudbado qurux badan bay ahaayeen
waxay ahaayeen waxyaabo quluubtanada iyo qalbiganaga soo jiitay hooyo walbo Soomaaliyeedna qalbigeeda soo jiitay aabo walbo Soomaaliyeedna qalbigiisa soo jiitay muwadani walbo Soomaaliyeedna qalbigiisa soo jiitay okay waayihii u horeysay waqtiyada u horeysay lama xaqiri karo farmaajo dardartii uu dawladda Soomaaliya ku waday waxay ahayd wax wanaagsan oo qurux badan bay gabra laga saaray waa soo dhaweynina Tigreegi magaraysaa faraha kul jira Soomaaliya ayaa laga saaray waa soo dhaweynina okay Ethiopia waxa la yiri way isbedeshay أميركا أسرة إثيوبيا كلياس بدل لك إثيوبيا دستور كذي يولي كوش غيرسا أيضا كذي يولي كوش غيرسا بوليسية أرمها الدبدة أما أرمها جيس كأفريقيا أقرأ 18 سنة إلى 14 سنة إلى 16 سنة دكور يولي إثيوبيا كوش غيرسا أوكي صوبها هني جاي بدلي فرماجي دولة دي سوغوري ما دبان هذا الجلية فرماجو إثيوبيا بو حكومة الرئي مقالة اللي هذا بينهم فرماجو إثيوبيان عيدمada Ethiopia ka raalago ciidamada Ethiopia ka ayuu wuxuu ku weeraray Kismaayo waa suurtagal weys laakiin magaalada Baydhabo hooyo Soomaaliyeed aaba Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed baa lagu dilay aad iyo aad aniga duqbilowe yes way hore waa taageeri jiray yes way hore tawaal dhacsana yes laakiin qaab aan ku sii taageero ama qaab aniga aan ku sii wato hawsheeda waan arki waay markaan arkay in Baydhabo Ethiopia lagu weeraray Kismaayana Ethiopia lagu weeraray Ethiopiaanki shalayta Ethiopian naceebnimadii aan ku taageernay farmaajo shalayto asagoo Ethiopia waa walaalaheen in oranayo asagoo Ethiopia intuu tago dagaalkii 77 ragii axmaarada ahaa ee ku dhamaaday meedadkoodii qabriyadoodii fiyoora saare waxa soo dhan markay qulubteeda soo noqnoqdeen aan qalbigayga xisaabiyay wadaniyadayda Soomaalinimadayda damiirkayga xisaabiyay waa fariistay waxaan sidaan kuma fiyo baan oo duqbiloobay yes waraysiyo badan oo bixiyay baan arinta ku sheegay anoo live ku jirana waa sheegay hadana dib baan ku cilinay waxaan isweydiiyay shalayto ninkii Ethiopia ka nacba in anagu taageernay aaway waxaan iri magaraysaa ninkii shalay wadaniga ahaa in anagu taageernay aaway waxyaabo soo markaa isweydiiyay aan maskaxdeeda dib ugu soo celceliyay waxyaabo kale to aniga sukay biirsaday aan magaraysaa maskaxdeeda ka shaqeysiyay waxa ii soo baxday in meeshan khiyaano qaran ay ka socoto cid walba oo taageertay macal aniga duqbilowe khiyaano qaran inaan ku jirno ayaa ii soo baxday okay qodobka labaad ee farmaajoga horimid waxa weeye iyo dadka asaga ku hareeraysan la taliyaashiisa okay Soomaaliya waa 4.5 umada Soomaaliyeed waxa weeye markuu dagaalkii sokeeye dhacay ee dawladii burburtay ee dadkii kala carreen ee umadii Soomaaliyeed ee kala shakisay waxa weeye beesha caalamka qorshe u dajisay waxay tiri Soomaali hal ay sukeeno Soomaali markii la sukeeno waxay ku heshiiyeen wax la yiraahdo 4.5 awood qaybsi macnaheedu uu yahay qabaylada Soomaaliyeed oo Soomaaliyeed ay kala koobantay isu yimaadaan in la gorfeeyo in la yiraahdo qaabkee ku heshiina qaabkeen wax u qaybsanaa ya 4.5 umada loogu keenay Soomaaliyeed sidii baa lagu kala qaatay heblow ree hebel cid hebel qabiil hebel inta ha kala qaataan baa la yiri ma sha Allah okay ana duqbilowe markaan leeyahay waa la isixray markaan leeyahay aqligayga ma joogin markaan leeyahay miirkayga ma joogin waan idin fasiraya si wanaagsan oo qurux badan baa idin ku fasiray waa qodobka labaad ee farmaajo horimi okay taageero badan baa social media uga sameynay farmaajo dad badan oo Soomaaliyeed ba taageeray inkastoo sanadihii koobaad iyo kii labaad lagu kala dhaqaaqo lagu kala tagay haddana intii soo hartay ee taageerada u sii muujinaysay iyo aniga markaas fiirnay 80% inta farmaajo social media ku taageeraysa ama group samaysay ama magaraysaa aniga ila soo xiriirisay waxay noqdeen hal reer waxaan ka waayay hal qof oo kale oo Soomaaliyeed oo deegaanada kala duwan ee Soomaaliyeed ka soo jeeda ka waayay Puntland baa ka waayay Koonfur Galbeed baa ka waayay Jubbaland baa ka waayay galmudug baan ka waayay Hirshabeelle ka waayay dawladda maamul goboleed muxuu ahaay maamul goboleed dawladda iskeed ugu dhawaaqday Somaliland baan ka waayay intaas oo dhan baa ka waayay waxaan arkay farmaajo dadka ku reerka ah farmaajo dadka asaga ugu xigo dadkay family isla yihiin ee qabiil markii la yiraahdo Soomaali isku qabiilka yihiin kaliya taageereen anigana dhex taaganahay waxa aan ku sheekaysanayna ay tahay in aniga meeshan ka soo jeeday deegaan ahaan ee Jubbaland ahayd ee Kismaayo ahayd in weer lagu qaado in farmaajo la amaano in Ahmed oo aniga marna abtigeeyay waalidkee marna adeerkee oo aniga dad igu xigo inaan aniga la caayo oo aan la aflagaadeeyo oo ay magaraysaa aan ka dhigo ninaan magac iyo maamuus iyo sharaf aan ku leeyahay Soomaaliya
واش ويديانو دقبلو وحان this is not right arrintan arrin saxan ma yes arrin saxan ma ku yiri arrin macnaha qofka Soomaaliga iyo muwaadinka iyo qofka damiirka la dhigala uu qaadan kara ma ahan I need to figure out that's waxa aniga sheekh igi culimo igeysay inaan anigu iraahdo what is wrong with me maxaa aniga iga qaldan hooyaday iyo eedaday iyo habartay iyo arxankaygi iyo dadkaygi ya diyaaradii laga cuno qabatay tagiisho dadkaygi arxankaygi ehelkaygi diyaaradii laga cuno qabatay umushaydi baad isku magaraysa isku baxayso oo dhiglaan u dhimanayso daawadii suuxinta iyo daawadii dhig joojinta ismaayeen soo gashay waa loo diiday okay Jubbaland waxay ka kooban tahay 3 gobol waa Gado Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe Gado oo farmaajo family ahaan reerkiisu ay degan yihiin diyaaradaha waa u fasaxayn garbaharey bay ka dagaayaan irbadii dhig joojinta la geenayaa waxa la geenayaa caanihi baa la geenayaa waxa la geenayaa saliidii baa la geenayaa dadkii baa laga qaadayaa meeshay dooneen bay u safrayeen deegaan ahaan meesha aniga ka soo jeedo ama tuul ahaan meesha aniga ka soo jeedo degmada doorashada waa qooqaani afmadow iyo dooble way diyaaradii waa laga cuno qabateeyay irbadii dhig joojinta waa loo diiday فلمبويكي waa loo diiday inay dad ka soo baxaana waa loo diiday okay halka markay taagan halka marayso ya asxaabtan anigu dawladda isla taageerinay ee aan dawladda u nacamleynay taageerinay boqolkiiba 8 farmaajo kuwa ku qoys bay noqdeen waxa ka waaya muwaadin kale oo Soomaaliyeed ama muwaadin kale oo Soomaaliyeed oo Soomaalinimo arinta ku taageeray waa waay okay soowaha marka arinta kaliftay waxa weey farmaajo markii la doortay waa taageernay umada Soomaaliyeed jawhar ha joogto Saylac ha joogto Hargeysa ha joogto Burca ha joogto Garowe ha joogto Boosaaso ha joogto Baydhabo ha joogto Diinsoor ha joogto Afmadow iyo Qooqaan ha joogto waa la taageeray farmaajo iigiya ka dhacay umadu markay xaqiiqda ogaadeen umada markay barteen farmaajaha saxda umadu markay ogaadeen dawladdan inay tahay dawlad aan magaraysaay rajadii loo qabay aysan sameeyeen umadu markay ogaatay iyo taageerada kala noqdeen waxa noqotay umada Soomaaliyeed inay u bataan oo aadaan dadka umada Soomaaliyeed badbaadinay dhinacooda inay aadaan dadka umada Soomaaliyeed badbaadinay inay dhinacooda aadaan sababta Soomaaliya waa 4.5 waa awood qaybsi weey umada Soomaaliyeed power sharing ba Soomaaliyeed dawladeedu loogu soo dhisay umada Soomaaliyeed markay arkeen ninkan inuusan ahayn ninkii lagu hami weynaa ama lagu rajo weynaa inuusan ahayn markay ogaadeen iyo umada Soomaaliyeed waxay go'aansatay in deegaanada iyo gobolada dalka Soomaaliya in la badbaadiyo Somaliland haday noqoto inay dadkooda badbaadiyaan Puntland haday noqoto inay dadkooda badbaadiyaan Galmudug haday noqoto inay dadkooda badbaadiyaan haday Jubbaland noqoto iyo dadkiiga saxsanaa inay Jubbaland iyo dadkooda iyo maatidooda badbaadiyaan sawaha keenay waa farmaajo shalayta Itoobiya ka waa nabca farmaajo shalayta cadawga umada Soomaaliyeed bay ka qabanayaan bulha farmaajo wuxuu la shalayto dalkanaga iyo ciidanada dhulkanaga cirkaasay marayaan maxaa dhacay markuu umada maxay arkeen anigu aan arki waay waxa weey in umada Soomaaliyeed arkeen farmaajo oo dekadii umada Soomaaliyeed siinaya Itoobiya umada Soomaaliyeed waxay aragtay farmaajihii shalayta lahaa Itoobiya waa cadow walaalka ka dhiganay umada Soomaaliyeed waxay aragtay farmaajihii shalayto wadamada dariska faragelinta nagu hayo ee magaraysa dalkana ku soo xadgudbayo waxa weeye go'aan ba ka gaarayna laha oo dal shisheeye intuu soo kaxeystay arrimaha nagi gudaha faraha asaga u geliyo yiri ii weerar Kismaayo iyo Axmed Madoobe ii weerar umadu markay intaas arkeen bay carray anigu dabiirkayga waa hoosay anigu yes arbacada waxba la sameeyaa ana duqbulow hooyaday oo la dilayo adeerkay oo laga dhigay inaan Soomaaliya maamuus ku lahayn eedaday oo loo diiday daawada dhig joojinta in loo geeyo deegaankii tuuladii ka soo jeeday oo cuna qabateen lagu hayo yaan farmaajo u subcinay I feel it that time inaan sixranay waxaan dareemay inaahay inaan dhiig lahayn waxaan dareemay inaahay nin u sixran u jibaysan groupkan aan hadda ka soo sheekeynay isku soo dudub ilaahay ba caafimaad ka bixiyo ilaahay ba umada Soomaaliyeed ka badbaadin doona farmaajo ilaahay ba aniga i garadsiiyay the right time waqtiga saxda ahayd inaan taa wadaado oo quraan is saaro maanta umada Soomaaliyeed aan runta u sheegayo leeyahay shalayto farmaajo waa saxsanaa yes wanaag badan buu inoo sheegay yes laakiin farmaajo maanta markuu Baydhabo ku weeraray Itoobiyaanka markuu Kismaayo Itoobiyaanka ku weeraray markii uu magaraysaay dalkanaga u ogolaaday inay dal shisheeye faragelin ku sameeyaan wadogtiin inay keenay nagu haysto
والله سعوتان كي نقوهش موادن والبو صوماليين أرنتها والله سعودها كي وصدح جير أفر جير مدكب بدن دبوا لك تدعوه بضد الصومالي وحان أقنها إذا عداها كشيء شقاب كدون تكي وهدليش مدحوينها هنا الصومالية maalintii dacwada dib loo dhigay muddo yar kadib wuxuu yimid magaalada Nairobi wuxuu la kulmay Uhuru la kulmay umada Soomaaliyeed waxa loo sheegay in diyaaradaha wajeer soo mara laga joojin doono Nairobi toos uga soo degi doono umada Soomaaliyeed waxa loo sheegay in xiriirka Kenya iyo Soomaaliya uu soo noqdo okay wa inta Kenya ay Soomaaliya u garaatay way umada Soomaaliyeed loo ma sheegin fiiri umada Soomaaliyeed looma sheegin waxa ay Soomaaliya u ogolaatay Kenya looma sheegin idaacadaha ka maqlayna jaraa'idiyada ka akhrisanayna rag siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo dhanba ka hadlay waa ignor gareeyay xaaniga lagu qasbay amsi Abdulrahman Shukr amsi Umar Abdirashiid amsi Sheikh Sharif haduu hadlay amsi kaabsi is over way soo dhamaad no yes dawladda waa jecleen yes ma jecel qof in dhaliil laga sheegay siyaasiyiinta You're right, because if I'm a social media activist, social media activist, إذا عدو يكلدوه هنا وقتان برا وما الصومالي اللي فات. إذا عدها ولا تفطير يا معناها ما أنالايز قرأي كلام شخص سياسي، لكن أنا ومركز الدولة التاجر على مقابل السوشيال ميديا لو يجتمع العاوي، إن هذا السياسي هذا قاعد يدورنا يو، إن أنكو أنالايز قرأياني. إنت هذا الردي خلط كاجان ردي سياسي الصومالية تاو كعرة وصوبت الشيخ شريف يحس الشيخ محمود عمر عبد الرشيد رك بدنوا السياسيين ميديا إلى الدولة دليلان وقدوا بنيين لكن صفر وصور مات إلى حق يتوس إلى حق يدرس ذلك كيجان جعله is right محل قد أدعياني إمارات بدلك مقرس هاي اللي وريجان العام شكر بدي بوقت وحبنا عسى ولا شيء وقال يا دقيسو madaxweynaha markuu Kenya yimid wuxuu Kenya u ogolaa waxa Kenya Soomaaliya u ogolaataa noloshay laakiin Soomaaliya waxa Kenya u ogolaatay cid noo sheegto male maxaa aniga lagu qasbo cid ka hadashay aamusi siyaasiga isku daya inuu magaraysaay arinta soo hadal qaado waxa la yiri cunaha ku dhig ma dhacaysa ku rano duqbalo dagaalkan nabadii nolol aniga muddo 4 bilood buu soo socday hadaad ogtihiin in yar baan uga gaabsaray xaq Ilaahay ba yar iitus dhageyso hadalkayga aad u dhageyso hadalkayga si wanaagsan oo qurux badan u dhaxo si wanaagsan oo fiican oo qurux badan muwaadin Soomaali wadaawaraysa si fiican u dhageyso yaa lagu lugoon yaa lagu marin habaabin dawladda khiyaano qaran ay ku jirtaa wallahi oo billaah tallah khiyaano qaran oo cad oo la qari karin bay ku jirtaa maray qalbi dhagax dhiibto mar badanadii khiyaano la geliyo oo ilaa hadda cid ka waa laga wareejiyay cid ka hadlayso male dhageyso qalbi dhagax bay dawladda dhiibtay baydhaba lagu weeraray magaraysa ciidamada Itoobiya Kismaayo oo dhul Soomaaliyeed inta ciidamada Itoobiya la soo diray yaa lagu weeraray waaga sixirna waa shacabtum yaano duqbalo dhageyso waxyaabaha soo dhan bay dawladda maxay ku qarraysto marka duqbalo hadda lacag baa siinaa duqbalo lacag baa hadda qaad lacagtii baa laga jira no way muwaadin dalkiisa jeclaabana muwaadin umadiisa iyo dawladdiisa iyo ciidiisa iyo calankiisa jeclaabana laakiin si khaldan badiga faa'iideysateen yes si khaldan farmaajo khayr yes si khaldan oo aan wanaagsaneen badiga faa'iideysateen aniga iyo kuwa kale hadda indhaha u duuban yihiin laakiin inta badan 80% umada Soomaaliyeed xaqiiqda ogaadeen qaladkaana waa mar hore ka laabteen ninka ugu dambeeyay waa aniga fiiri badeeni waa loo aamusay waay farmaajo intuu shir jaraa'id qabto umada u hor yimaad muxuu sheegay waay Kenya markii uu yimid ee Nairobi yimid ee uu la hadlay Uhuru uu la kulmay muxuu dhii waxa ba ku wada hadal no way qof hadlay male waaga jibeysnaawe Abdulrahman Shukr ba ku mashquul yaa ku mashquulnay Umar Abdirashiid ba ku mashquul waa muwaadiniin Soomaaliyeed way dalka u soo shaqeeyay meesha maanta dalka uu joogayga soo gaarsi salaad la wareegtay yes خير شلا لا ورقت فرماجو شلا لا ورقت هول با سو سعود حسن كعبسي يا حسن الشيخ محمود كعبسي فيل با دي سو درينا سم نو سنات way soo dhamaatay dawladda khiyaano qaran oo cad bay ku jirtaa oo wallahi aan la qarin karin bay ku jirtaa maray qalbi dhagax dhiibtay ciidamada Itoobiyaana lagu weeraray baydhabo ciidamada Itoobiyaana Kismaayo lagu qabsaday rabay dhageyso badeena Soomaaliyeed حفظ الله حسن الشيخ محمود إلهي حفظ إنكارتي سنة إلهي أقدو وحوى أنك بدأ النظر محكمة دقية وي فيري بدأ النظر نكي محكمة دقية حسن الشيخ محمود بوها حقاي مرة يسامانت دي بلو سعودية جون نعر هاد على وكاس يشيسو سال لقاري
إلا شيء ما الرب لكن دقبلوا إلها إنديه أفري إلها باب مجرد عافمات شيء وكسر علنا بدر الصومالي وأنا كيرنا بناك كيرنا يشيس كلا لقلي كيا يقاب كلا شيء بناك هي مانيسا والسياسة لقيسه هذا لقيس واجب بيسي أنت حقا مجرد إلهي توصل مرة كذا قاعد برتن واجب بيسي هذه بوجب بيسي انت شيء حقيقي عبد الرحمن شكور إثيوبيان ومدي بالمواطن الصومالي عبد الرحمن عبد الشكور بدا الصوماليا كان انتو لا كلمي ما قريشay dib loo ma dhigin عبد الرحمن عبد الشكور ما قريشay انتو ciidamada إثيوبيان soo qaatay baydhaba ku muusawir عبد الرحمن عبد الشكور inuu ciidamada إثيوبيان soo qaatay baydhaba kuma weer انت aan sheegaba عبد الرشيد ما قريشay عمر عبد الرشيد ما sameyn أحمد محمد إسلام ما sameyn سعيد عبد الله الدني ما سمين دقيشو قدر با هوستا لغو وتا او دقاله بخينيس او لغو ايديي او بيش عالمka إجرائيديada waaweyn beesh caalamku ay ku eedeeyeen in magaraysa qaraxyadii boosaaso ka dhacay ayada ka dambeys been qadar ba hoosta lagu wataa iyo magaraysa saaxiibkay faadiyasi way wanaagsan tahay imaarada inta dhacay no I don't believe that we don't believe imaarad in uu magaraysa dhacay dalkanaga anaga nalagama dhaadhicin karo way soo dhamaatay propagandadii la fidin jiray ee qaabka dar way soo dhamaatay imaaraad iyo qadar isku mid weey danaha ay Soomaaliya siyaas ahaan ay kala yihiin labadooda isku mid weey no qadarna wanaagsanaato imaaraadna xumaata aniga uma maleenayo ma aaminsan arintayda okay tusaale imaaraad waxa lagu eedeynayaa inay xaalufinayso dhirti okay yaa daran kuwa dadka Soomaaliyeed wiilashii dhalinyarada Soomaaliyeed xaalufinayo ee garoonka 2022 World Cup lagu ciyaarayo lagu bahdilayo cawska ku beeray yaa daran ee wiilashanadii Soomaaliyeed magaraysa intii qadar la geeyay firi qadar la geeyay sidii magaraysa sidii Bangladeshka iyo magaraysa Pakistaaniyiinta sidoodii magaraysa lagu durdilay lagu bahdilayo xuquuqdooda lagu lunsanayo qadar يا در تبحوش قادريسو يا تدد نونول تي قادتي عوسك غرومدا ku beerayso يا در waxa daran tadadkayga wiilashayda dhalinyartayda qaadanaysa ku dilayso ee meedkoodana aan dib loo soo celinay taas daran عبد الرحمن ما خلدنا عمر عبد الرشيد ما خلدنا احمد محمد اسلام ما خلدنا سعيد عبد الله الدري ما خلدنا intaasoo muwaadin oo Soomaaliyeed oo siyaasiyiin oo xaq u leh dalkan ma khaldan ma dhici karto inuu farmaajo Ethiopian u dhibay muwaadin Soomaaliyeed oo dalkiisa u soo dagaalamay oo u soo dhaawacmay inuu Ethiopian u dhibay Ethiopian intuu u dhibo oo uu ka gato Ethiopian kuna tilmaamay inuu argagixisaa kaasa khiyaano qaran ku jiro farmaajo waadig waxa khiyaano qaran ku jiro ninka intuu ciidamada Ethiopian soo qaatay baydhabo hooyooyinkayga ku dilay wiilashayda ku dilay carruurtayda ku dilay ee meydkooda ma garashay kaaraha Ethiopian kala maray kaasa khiyaano qaran ku jiro ma dhicin taariikhda xal Sheekh Maxamuud baa madaxweyne noo soo Sheekh Shariif baa madaxweyne noo soo ma dhicin Ethiopian nagu soo weeraraan ma dhicin inay hooyo Soomaaliyeed ee kaaraha Ethiopian ka mariyaan ma dhicin inay badeennada ma garashay Kenya heshiis kula galaan ugu dambeyntii waa soo gabagabeeyay dhageyso farmaajo gado qabiilhaan meeshu ka soo jeedo weey ma sheegayo laakiin waa qabiilhaan meeshu ka soo jeedo weey muxuu sameeyay jubada hoosena ma galin jubada dhaxana ma gal gado waa baar dadkii gadada garaa isku reerkaayeen iyuu ugu yeeray lacag buu dhibay ciidamada garaysaaya ku reere oo gobolada dhaxal laga keenay buu meesha ku soo daabulaya muxuu wadaa ajabadeen aan qabsana Kismaayo intaan xukunka iga dhicin aan xukun qabsana Kismaayo waa dream weey ودريم أو فرماج وكدريم كرينيوي حقيقة دبت ومدى الصوماليين دبت أكتان ومدى الصوماليين هذه يدبروا السلامية وواسك تقبلوها نعميش هو يضي يا بهي يضدك يقول عزوريري ومقرر السايل لتكوري وهو يضي ديك جوجنت اللي جوجي يرمدي ديك جوجنت فلا بدي اللي قوستي هنا فرماج أسين عملية أصدقوا أو خيانة غير كجرو ومدى الصوماليين عفش بودي سنة يميلوا بالتأديد كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.